الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا ليال هذه أدباد ما سنتين أنا وحنا يا عبد الغني محمد حسين عبد الغني مانديلا وحنا شخصيات ولا ليسن نبض يهور مركز سوماليلاند أنا وحنا دوني isbedel ka waxaan u doonayaa anigu nin dhalinyaro baan ahay waxaan arkayaa xadaarada iyo albaxnimada caalamka ee adduunyada imika uu ku maamulayo 39 jir madaxweyne kaga yahay anigoo 20 jir waan diiday inaan siyaasadda dibadda ka fadhiyo saaxiibayaal waxaan idin sheegayaa mid aniga siyaasaddu waa dookhayga laakiin daadan inaan ku soo galo ma rabin laakiin waxaan ku soo galay dareen sababtoo ah maanta waxa gobolkayga ka jira waxa lagu muransan yahay xafiiska gobolka awdal waa la iibiyay iyo lama iibin taas miyay dhici lahayd anigu waxaan doonayaa isbedel inuu isbedesho muuqaalka noloshu waxaan doonayaa inay isbedesho muuqaalka dhalinyarada Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro iyo Maxamed Cali haddii ay doonayaan inay bedelaan muuqaalka dhalinyarada Soomaaliland anna maanta waxaan u soo baxay inaan garabkooga istaago oo aan kala shaqeeyo arrinka waxaan aad u salaamayaa dadkii sharafta lahaa xisbiga igu soo dhaweeyay oo uu ka mid yahay la taliyaha arrimaha doorashooyinka Dr. Radwan Cismaan Master Rabiile xogayaha cadaaladda xogayaha dhalinyarada gudoomiyaha garabka dhalinyarada gudoomiyaha gobolka Awdal mid baan anigu idin sheegaya Somaliland isbedel baa u baahan tahay isbedelka ay u baahan tahay waxaan rabnaa inay gamcaha isku qabsano anigu laba xisbi baan kala doortay xisbi lagu soo kala horeeyo oo aan la kala lahayn iyo xisbi la kala leeyahay xisbiga la kala leeyahay miyaad garanaysaan waa xisbiga la leeyahay laba reerood oo wax ka noqon kara labada reerood waa goob oo waa nasab oo xilka weygayaan laakiin iyaga aan doonayn in Soomaaliland waligood ba u taliyaan waxay doonayaan inay walaalahoodna taliyaan mid baan idin sheegayaa anigu siyaasadda waxaan u soo galay ama xisbiga wadani ku doortay inaan qayb ka qaato geediga dimuqraadiyadda doorashooyinka dawladnimada dibudhiska dal jacaylka iyo wadaniyadda anigu waxaan doonayaa inaan qayb ka noqdo rumaynta rabitaanka riyada iyo rajada Somaliland waxaan doonayaa inaan wadani la weeleeyo sidii loo culi lahaa weelka siyaasadda iyadoo cagta la saarayo wax wada qabsiga wax soo saarka wada jirka wada noolaanshaha usaldhigiisu yahay saaxiibayaal mid baan idin soo kordhinayaa hadraawi waa wuxuu yiri hadraawi soo sixir bararka ma cabanasaan hadraawi waa wuxuu yiri intuu bahallaha dugsado intuu dabur hawd ka xulo ayuu qofku doonayaa dugaagu inaanu cuno sixir barar baad ka cabanaysaan dabadeetana kulmiya cod inaga raba ma soconayso waa salaamatiin